isku keenay dagaal buu wadaa siyaasadii uu saxay waliba beel gaar ah oo hawiye markii la yiraahdo farmaajo dadka difaacaad qayb ka ahayd oo dadka farkutiriska siyaasiyiinta ma wax gaar oo lagu siiyay abdiyo baa jiray mise aragtidaadu sax bay ahayd oo farmaajo waa kula qomanaa farmaajo waa ila tashaday waa ii yaaray waa ila tashaday wuxuu ugu yeeri dalkan Soomaali gacanteeda waxba kuma jiraan hadda wuu joogaa waa beentaaba dhihi karaa Soomaali gacanteeda wax kuma jiraan dawladnimada ma hayno xaafadan soo dhex degay xaafad niman ajnabi ah haystaan soo dhex degay albaabka ayaa ka iifa fadhiya sidaan ajnabiga aan gacanta dalka uga bixi lahayn Soomaalina isku la doonayeen igala shaqeeyo ayadii aan kala shaqeynay waxaan ka shaqeey weyn kuwa madaxnimo beena wuxuu waa NGO ku haysta NGO meesha ku haay NGO kuwa ku haysta ka shaqeey weyn oo yahay waa ragii madaxnimada ku haysto isdabadiday oo tirada badnaan qaraabada wada ahayn 14 nimo ilma adeera oo kulligood madaxweyne wada doonayay ay ahaayeen 14 nin qaraaban wada ahayn madaxweyne wada doonayay hadda farmaajo waa ka riteen meeshiyaan taagan farmaajana waxba hadda tadawur una gaarsiiyay kuma lihi oo tadawur laakiin hal mid aan farmaajo ku rabay waxa weeye farmaajo nin ajnabiya war naga bax ninka waxba noo dhimaysa nin dhihi karo aha ma faham dawladana dhibaataynaysa nin garan karo aha oo ah example hadda dawladda Imaaraadku dhibaatada ay hadda Soomaaliya si xaqaan waxaan ku sheegay wax la yiraahdo geopolitics jira dawladda Imaaraadka waxa weeye qolag walba sirdoonkooda waa inaad ka warqabto dawladda Imaaraadka Soomaaliya waxay u rabtaa waxay Jabal Ali ilaalinaysa waxay rabtaa dekada xumo macmala inta ka dhisto inay iyadu haysato oo Soomaaliya ay gobolkaas sida Ethiopia noo samaysay Imaaraadku dadka dabada ka taaganaya wax la taageero maaha qadara wax noo qabanaysa ma qabo dadka qaba kamid ma dawlad wax noo qabanaysa ma jiro anaka waxaan qabsanaan leen hal dawlad oo anaka tadawur nala rabtaa ma jiro Soomaaliya in la baabi'iyo la tirtiro meesha ay degantaa waa istiraatiiji laga qaado oo qabiil ay noqoto sidaas caalamku raba farmaajo maxaad ugu magacawneed farmaajo waxa weeye waxba gooniyo jaga anigu aan u hayay ma jireen nin oday oo intuu u yeero siyaasiyiho uu inta yiraahdo maxaan yeelnaa oo aha ninkuna wuu ku weynaysiiyay hadduu inta ku yeero ku qadariyo oo ku yiraahdo war maxaan yeelnaa waa dabcan waa la talinaysa waxaan kula talinay waxna uu iska tuuray waxna waa iga yeelay waxaan kula taliyay waxa kamid ah hadda example waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha ninka uu magacaabay niman ahaynan u tilmaaman war ninkaas markii hore miskii dambe ra'iisul wasaarihii dambe ninkaas magacaaw hameen baan u tagnay waxaan niri waxa uu yiri ra'iisul wasaarahan dhiibaya aan rabaa inaan baxsho marka war ninkaas magacaaw baan ninkii uu diiday ninuu jeebkiisa ka keensan isagoo ka dacwoonaya hadda hog yaba abdiyo ninka u geysan yahay nin la yaqaan caan ku ahaa marka ma raba inaan hadda muugta ka hadlo laakiin nin wuxuu ahaa markii aysan isgafeen oo aan xoogaa dalka isdhehi lahayn hore baad wuxuu dhaqaajin doon mid kale farmaajo aniga xaqiiqadii marka ku sheego nin ii sheegay inuu aaminsan yahay Soomaaliya inay gacan cadow ku jirto ayuu ahaa sida aan kalsoonida ku qaaday oo aan kula shaqeynay intaas ay mishaar ma qaadanaysa abdi kama qaadanayn mishaar waligiis mishaar ma siin uu joogaa waxna ma weydiisan waligii darajana ma weydiisan dhaqaalana ma weydiisan qofna kula ma shaqeeyo waxa حسن هذا خالنا كمرة درجنا كمرة لكن وحنا ربع إن وحنا توصانه دل كان سومالي من ما يالته وإذا تشري يالته وشنت السومالي سوق كانوا والله ولا عليه سلاسة ربع شيت كيدين ومتشيدو هدو هذا القاضي يو إلهي قادسيو هذا أنت حسن فكره وعاو موقته إلهي موقته شنبر قلير مارت بركيسان ودرباحي كراه أنت قلير بركيسان عاو درباحه ويرى هذا شنت السوماليين واسلقوا من السومالي من نمذج اسلقوا من متى كريو هذا عن حوجا قدر إنسانها Ethiopia dhulkii ugu badnaa Soomaaliya haysata ayuu Masar ka degay waa geesnimo macna hirbaantii oo qariska tuurnimo fahamtay laakiin haddana hadduu inta ku adkaysto raganimo ku sameeyo oo yiraahdo nimankan ajnabiga ah oo example African oo mushaarka ku bixiya ciidamada Afrikaanka siiya ama nimankan naga baxsha idinka mushaar nagu siiye ama maaragtay ama shacabkaygan abaabulaya oo dagaalamaan leey hadduu inta yiraahdo ilaahay taas waafajiyo ayaa ruuxeedu waa aragti
waa wax loo qaadan karo macnaha waa nin macquul oo markaas waa nin Soomaalinimo ku jirto maaragtay taariikh samaysanay hadduu taariikh samaysanayo xasan maanta qof aan taariikh kala jeclaan lahaa ma jiro hadduu taariikh abuuranayo waa hagaag waa soo gabagabaynaa cabdi waa nala dheeraaday waan ku mahad celinayaa cabdi waxaa tusaale kugu filan la leeyahay dadkan waxaa haysataa reer galbeed iyo gaala ku adeeganaysaa tiri hogaamiye kooxeedyadii oo adiga aad qayb ka ahayd ma ka marneedeen hogaamiye kooxeedyadii markaa waryar idiin sheego waxaa weeye waa ka marnay barkeen waa ka marnaa rag xiriir la lahaa way jireen niman ajnabiya rag xiriir la lahaa way jireen laakiin anigoo kale iyo gruubka midu xiriir lama lahayn ajnabi weligeena lama yeelan waxyaalaha xiriirka aanan ula lahayn waxa ka mid ah laakiin waan idayay waan ogaa ragga saaxiibadeeya qaarkood in ajnabigu wax soo marsiinayaan oo wax la soo marsiiyay inoo soo gudbinayaan sababtan taas ku aaminsanaana waxa weeye waaman dareensanaaba haddana waa ka wada hadalna in ajnabigan beenna aan u sheegno aanan ka danaysano waa ka wada hadalna macnaha waa sir aan loo baahnayn inaan qof u sheego aan kuu sheego ayadiina waxaa na gafsiiyey rag ka mida ayaa inaan been sheegna diiday waan ajnabigan ma fahamtay aan maaragtay beenay iyakuba noo keeneen beentay noo keeneen inaan turjumadeeda aan hoosta ka gelino rag annaka naga mid aha diiday ayadii baana maaragtay na dumisay hadday hubka idiin keenayeen ama cabdi ha la soo marsiiyo ama hebel kale ha la soo marsiiyo oo lacagta ayaga idiin siinayeen ninaan quudkiisa milkilin go-aankiisa ma leh qofka quudkaaga milkiya go-aankaaga leh ma moogeed cabdi in go-aanka adiga aad qaadan lahayd in adiga uu kaa imaanaynine dadka quudkiina leh ee lacagta iyo hubkaba idiin siinaya ee go-aanka lahaayeen hub hortore nama siinayn oo hub ajnabigaas kama aan qaadanayn laakiin waxay lahaayeen dhaqaalay dhiibayeen dhaqaalahay dhiibayeenna waxay ku dhiibayeen wax beenahoo ayaku ay raadinayeen wax beenahoo ayaku iska dhaadhacsheen wax beenahoo annaka nagu dhibaataynayeen qaarkeen ma dareensaneen inay dhibaato nagu samaynayaan wanaag inay noo wadaan qaarkeen dareensanaa qaarkaasaana na hoday marka rag habaabay ka soo qaad taladoodu raggana taladu waa ka hoos baxdaa soomaalidana wakti fara badanaa dadku wada habaaba marka ayadiina waa garanayo hadda inay habaajinayaan barkeen waa dareensanaa anigu dadka dareensanaayo midda labaad nama hantinine dadka inta fariisanaan ka shiri jirin waxay noo diraan wax ka bedelan ayaan samayn jirin waxooda ma aan wixii ay noo direen haddaan samayn lahayn soomaaliba wanaag ma yeelateen oo dhibaataan dhexdanada ka abuurmi lahayd annaka ruux annaga iskuma kaana fiicnay midda labaad ajnabigu adinka ruux annaga 11 qof aan ahayn inaan annaka ruux annagu midnimo leenahay ma ay rabin ninba qof gooniba inay wax ugu sheegaan ay rabeen dhibaatay noo rabeen wanaag nooma ay rabin weligood ajnabi noo yimid oo Soomaaliya wanaag ugu fakaraya ma jiro Soomaalidu horta waa inay barato ajnabigu dhibaato nala rabaa wanaagna lama rabaan cabdi nuur siyaad shakhsiyaadkii loo gacan galiyay shisheeyaha oo culimada lahaa qayb ma ka ahayd dadka dhiibay wax ajnabi oo loo gacan galiyay shisheeye ma jirin beenta haddii la buunbuuniyo oo dadku moogtaa been iska sheegaan ma fahamtay miyaanan culimo degmooyinka xamar laga qaban cabdi maya waxba kama jiraan hal qof oo culimaha reerka laga qabta fiiri annaka dhan waa isku wada sheegan aniga example shiran annaka galna hoose aniga waxaan idhi maantay waxaa dad iigu xiga waa xasan daahir aweysna shirkiisa in la taabto ma rabo ninka marka la qabanayo wuu qof kastaba marka wuu garta gaalada marka waxay yiraahdeen ajnabi dalkiina yimid aan rabnaa adinka qof Soomaaliya ma rabno marka ma jirin qof Soomaaliya been weeyo hal qof oo Soomaaliya oo inta la qabtay la geeyay anigu ma ogi markaan runta ku sheego cabdi nuur siyaad aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasadda muddo dheer ku soo jiray xaaladda guud ee dalka ayaan wareysigan ku qaada dhignay aad baan kugu mahadcelinahay cabdi thank you وهاجاج أنا جو علي عمر عوريسي ذين قاضي تلفزيون شباب الأيات كده ونيسين مهد حسن عبدي أيا فرصمة كاميرا إسكالها إنجو إسكودو بنا بتجلي shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka doolar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha